ugu yaraantii 28 qof ayaa ku geeriyootay halka tire intaas ka badan ay ku dhaawacmeen isku dhaca booliiska iyo dibadbaxyaasha ka sii soconaya wadanka Uganda ka gadal markii booliisku ay xireen murashaxa madaxweyne Bobi Wine oo sidoo kalena ah fanaan caan ka ah gudaha wadanka Uganda. dawladdu waxa ay sheegtay in 28 qof ay ku dhinteen dibadbaxani ka soconaya wadanka Uganda tan iyo Arbacadii. Bobi Wine ayaa booliisku waxa ay sheegeen inuu jabiyay xeerarka lagu xakameynayo faafidda xanuunka safmareenka ah ee COVID-19 kadib markii uu ka qayb galay isu soo baxa uu ku muujinayay murashaxnimadiisa. balse hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegayaan in dacwadaha lagu soo oogay ay yihiin kuwa markaasi looga gol leeyahay in lagu cadaadiyo mucaaradka ka hor doorashada guud ee wadanka Uganda bisha January. fanaankan oo magaciisa rasmiga ah uu yahay Robert ayaa kamid ah 11 murashax oo shaaciyay in xilka doorashada ay kula tartami doonaan madaxweynaha wadanka Uganda Mr. Yoweri Museveni oo wadankaasi maamulayay tan iyo sanadkii 1986. fanaankan ayaa imika xabsiga laga sii daayay si damaanad ah ka gadal markii jimcihii maxkamad ku taala wadanka Uganda si gaar ah xarunta dalkaasi ee Kampala la horkeenay. wasiirka amniga ee wadanka Uganda Mr. Tom Wine ayaa waxa uu sheegay in booliiska Uganda ay xaq u leeyihiin in ay toogtaan cid walba oo rabshad kicisa. wasiirka amniga oo la hadlayay wariyaasha ayaa yiri ma ku celiyaa mar kale booliiska wadanka Uganda waxa ay xaq u leeyihiin in ay toogtaan isla markaana ay dilaan cid walba oo rabshad kicisa. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.